السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وإخلاص عبد الله على وحمد الله يا هاي صوماليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الله وحمد الله يا ويل صوماليات. هو يضحي كسر يساعد الراشين هو يعصب يساقو ما يوحنا كلها عصبة كان ميا ما يعصبة يساقو كان ميا ما يعصبة يساقو ما هو فاهم دبضنا واتن عصبة وين فهمتها ما يا ساس ما أنا واحد بملي فاللمبرة يا لغة كعمك هذا عبد الله يخلص هذا ما تسين وحيك ترسين أرضي وحك برا سكوك دولياش صوتك هذا فرحتنا ما أنتني اللي صار بني قيبتي هذا الرواية ده قيبتي وقدم بس رواية قيبتها وحي ستوس وقصعتها وين صوماليات قاران وينك طلع عروت مقال كنافذة هو يفرنتي قوة وحيته إن عبرت الوقت قعمك هذا وايو تاسوها مدوغو ميمسن اوعد من قادك فهمي كرتو هو يضوى معلم كوت هو يضوى حي عروت وحساب برتا مركا يريرين تصالحان ضدك الطبيعية وحي ساقاطن لبسا مسيحي وبرتان وهذا لغة كستوي هاتو عنق لغة كستو ودشو وباهي لو سنة لغة أصبرته هاي الله مدو غورة سيريد وغورة ماما يا بابا دتك برتو لكن مرادية هاي ذي سنة قال اللغة لغلوها عنق هذا دوالك لكن هاي دش عنق دواله عنق هديو دوالي هاي مكدقنا إنها تمسير عرق كصادع لكن وحي كدق أنت عنق سنو يا عنق عادية وعاف ما تقو وحاجرو نعرر بدنا مركاي دشان كدب دولا نقدان iyo kuwa ku dhasho oo dabiici ah mid koowaad waa in qadarta ilaahay la qaato oo lagu qanacsanaada mid labaad waxay tahay inay hooyadu isku daydo in cunugeeda si ay ku fahmineed haddii aad ay noqoto inaad raayso iskuul wax lagu barto haddii ay noqoto inaad maanta caalamka tiknoolajiga ee maanta jiro aad ka faa'iidaysato oo internet ka baarto luqad lagula hadli karo cunugaad taas waxay ka caawin doontaa inaa cunugaad isfahamtaan waxay ka caawin doontaa inaa soo saarto ilmo siman ilmo wax kasta fahmi kara annagana markaad noo keenaysa macallimiin ahaan ee ilmahaas ugu bilaawno sida loo qor lahaa af Soomaaliya ilmaha dabiiciga hooyada macallinka waa markay hooyada wax kasta soo barto iskuulka markii la keeno kaliya waxaa loo bilaabaa qaabka loo qor lahaa luqadda af Soomaaliga laakiin annaga haddaan macallimiinta wax bara dadka maqalka naafada waxaana loo keenaa cunugaas isagoo 8 sano 9 sano 10 sano 15 sano isagoo jiro laakiin aan walgiis wax bala soo barin kaliya meel fadhiyo maaha cunugaas weel xaafadda yaala maaha laakiin waa qof nool hadduusan cunugaas cunug firfircoon uusan ahayn hooyadiisna mid firfircoon aysan ahayn ma baran kara wax halkaasuu fadhinaa waxay nagu qasbaysaa inaan fasalka koowaad u bilaawno ka hor inaan soo marsiino 2 sano oo tababara 2 sano waa 2 sano oo hooyada iyo guriga ku soo bar lahayd 2 sano haddii iskuulkaas uu yahay mid lacag lagu qaato 2 sano waxay kugu qasbaysaa inaad lacagteeda dhiibto haddii uu yahay iskuulkaas mid tabarucaadna 2 sano waxay kugu qasbaysaa inaad dul qaadato oo cunugaada maalin kasta aawraysto waa fasalkee waa fasal koowaad waa fasal koowaad b waa fasal koowaad 3 sano fasal koowaad maxay tahay markaas waxay kugu abuuraysaa xanaaq laakiin ma ogidna adiga kaalintaada ay tahay fasal koowaad b koowaad waa kaalintaada adiga oo aad gabtay oo aan naga qaadan saas darteed hooyooyinka Soomaaliyeed si wada jira gaaraan hooyooyinka dhalay carruurta maqalka naafada waxaan ugu baaqaa si kasta oo ay ku qaadato inay luqadaan bartaan aabbayaasha dhalay carruurtoodana sidoo kale waxaan ugu baaqaa si kasta oo ay ku qaadato inay luqadaan bartaan oo isku taxluujiyaan sidoo kale macallimiinta guud ahaan waxaan ugu baaqaa inay bartaan luqadaan waayo haddii uu arday maqalka naafa u yimaado ardaygaas wuxuu u baahan yahay luqad gooni oo loogu hadlo لكن هدي هذا إسكدا
فصل كاس كبرتو وحي وكان سدا لاركا وحي نقنيسا تقار ardaygaas ugu sameeyay xad gudub oo ardaygaas loo gaastay laakiin ma xad gudub bad xad gudub dadban munaasabadana waxaan jeclaan lahaa inuu madaliyo macalinkay oo macalin Ismaaciil Barfeysar Baal macalinkay oo in badan iyo soo dulqaatay oo jaamacadda 10 qaab gooni ah ayuu fahamsin jiray jaamacadda saaniyo wax ka soo bartay marna ma ka dareem jirin taqaar sabab la xiriir macalintay oo ugu dulqaadan jireen luqadaas macalin Ismaaciil waa maadsantahay dhamaantiin waa maadsantiin